suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir oo ka mid ah salaadiinta Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda dhinaca colaadeed ee u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland. wallahi labada dol ee jaarka waxaan leeyahay nabadood dadaal colaad waxaad badan bayn soo aragnay iyo dhimasho iyo hoog ilaa ideeyti ilaa maanta wax lagu dagaalamay garan maayo dadkana waxay isu geynayaan oo waxaan waxba ahayn marka in nabadda loo dadaalo ayaan ku goobaabinayaa labada dal oo la ixtiraamo nabadgelyada iyo wada shaqaynta laba ummadood oo isaga dhow ma jirto ummadda kale koonfur ka timaada yaa lama afnaqaano laakiin nimankan jeerteenka aad baynu isugu dhaqanowni waxaan leeyahay dadku hadday isugu dhaqan yihiinna waa dad gacala dee hala ilaaliyo gacaltooyada iyo nabadgelyadaba colaadi waxba tari mayso wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho soomaali hore hadal u dhammaystay dhaqo aan ku dhaqdee uma arrinku meesha yaalla waa intaa dhinaca kale suldaanku waxa uu ka hadlay hadal ka soo yeedhay suldaan xasan suldaan cabdilaahi suldaan cabdiraxmaan lama qabo uusan teegaanta baabihi oo tii kursiga ay saartay adoo arrintu ah wada teegaantu dhibaato kale male anu dee kuma ogi wax colaada oy hayaan inta badanna uma dhegeysta imika idaacadaha iyo tviyada sababtan u dhegeysa waayo waxa weeye markiiba warka mid khilaafsan baa soo baxaya war khilaaf socda iyo mid hagaagsan marka labadii kala garan maysa ka dhibaatada le iyo ka wanaageeda adiga way iskaga dhexdirsamayaan marka inaan lug ku darsano ma jeclin runtii Puntland iyo Somaliland waxaas oo Jubaland iyo waxa ay la baxeen labada dale aan sidii way isku dhaqan waa labada oo Puntland iyo Somaliland waana xuduudda u dhaxaysa waxa keenaysa marka waxa lagu dhiirigeliyo in dagaalku sii horo runtii ma fiicna waxaa wanaagsan nabadgelyadooda inay ilaaliyaan inay isgeliyaan salaadiinta Somaliland ayaa inta badan lagu eedeeyaa inay ku dhex milmeen siyaasadda arrintaasi qorshe ka duwan ayaa xukuumadda cusub ee hadda madaxweyne Muuse ay wadaa qorshahaasi oo ay ku eekaadaan dhaqankooga suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir ayaa su'aal arrintaasi la xidhiidha aan weydiiyey waxaanu iigu jawaabay horta siyaasaddu maaha wax loo dhashay waa nin iyo fikirkiisa inuuba fikirkani amood ku raacay maad ku diidi madaxweynuhu wuxuu yidhaahdana min la tixgeliyo mase inuu annaga dhakada naga soo fuulo in la tixgeliyo waan ogolay laakiin in salaadiinta lasoo fargeliyo taa ka yeeli mayno waxaanu gar u leenahay in baan qaadanayn laakiin waxaanaanu gar u lahayn ugu dambayntii suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir oo in badan ka soo horjeeday madaxweynaha hadda la doortay ee Muuse Biixi ayaa la weydiiyey bal hadda sida uu arko xukuumaddiisa hadda qayb ka mid ah uu dhisay runtii waa xukuumad tayo leh oran maayo waa xukuumad lowsaala waa xukuumad tayo leh Muusena fikirkiisa naqaan oo ilaa dee waxaan soo hayn dhalinyaradii hore Muuse markuu maagan yahay keligii tashan maayo dad buu la tashanaya arrinkuu doonayo ilaa uu dadka la tashado sidii nin dhegala sii dayn maayo waa nin degan waqti dheerna oo nisnaqaana Muuse Battery Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa.